daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan xogihii ugu dambeeyay ee ku aadan howlgallada ka soconaya deegaanada iyo tuulooyin dhaca gobolada dalka. xogaha aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland oo qasaarihii ugu xoogana gaarsiiyay kooxda qawaarjaha al-shabaab. waa daawan doontaan xog ayaan idin kaga helnaa howlgalladaasi. sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo amar degdeg bixiyay waxaana amarkaasi ahaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida ugu dhaqsiyaha badan ay dhaqaaqaan. xog ayaan kaga helnaa. sidoo kale shabeellaha dhexe waxaa ka dhacay howlgalladii ugu xoogana ay sameeyeen maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. wixii soo koran waa daawan doontaan, bal u diyaar garooba xogihii ugu dambeeyay ee ku aadan howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. muuqaalkan hadduu kusoo gaaro meel dheer inuu gaarsi channelkan subscribe noo dheh. waa mahadsantiin. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ayaa qasaarihii ugu xooganaa gaarsiiyay kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab. degmada Jamaame dagaalka ugu cuslaa ayaa ka dhacay. sidoo kale deegaano badan oo jubbooyinka ah iyo ciidamada howlgalla ay ka sameeyeen. nala daawada qasaarihii ugu xooganaa ee degmada Jamaame lagu gaarsiiyay kooxda nabadiidka ah ee al-shabaab. saad arkaysaanba waa geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. degmada Jamaame ayaa dagaal culus waxa ay kula galeen kooxda nabadiidka ah ee al-shabaab. wararka aanu ka helino deegaanadaasi ayaa waxay sheegayaan in maanta barqanimadii ilaa xilligan oo habeenimo ah ay ciidamadu dagaal adag kula jiraan kooxaha nabadiidka ah ee al-shabaab. 55 dhagar qabo oo ka tirsan kooxda nabadiidka ah ayaa degmada Jamaame ay ciidamadu ku dileen. waxaana sidoo kale ciidamadu ay ku guuleysteen hub iyo saanada military inay ka soo furtaan kooxda qawaarjaha al-shabaab. dagaalka oo aad u xooganaa ilaa habeennimadana socda ayay ciidamadu waxay ku guuleysteen in deegaano ka fog degmada Jamaame ee banaanka uga saaraan kooxda nabadiidka ah al-shabaab. 25 kilomitir square ayay ciidamadu gacanta ku dhigeen. waxayna ciidamadu ku guuleysteen gabi ahaanba deegaanadaasi ay ka ceeriyaan kooxda nabadiidka ah al-shabaab. dagaalkii ugu cuslaa oo bilowday 12 barqanimo ee maanta ilaa haatan uu habeenimada socda ayaa waxay warku sheegayaan in duleedka degmada Jamaame uu haatan ka soconayo. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland ayaa gudaha u galay fariisimihii kooxda nabadiidka ah al-shabaab ay ku lahayn deegaanadaasi. sidoo kale wararka ayaa waxay sheegayaan in duqeymo xoogan oo dhanka cirka ah deegaanadaasi laga sameeyay. saad muuqaalada hordhacba aad ku aragteen duqeymahaasi waxaa sameeyay diyaaradaha dagaalka ee dowladda Turkiga ay dhawaan keentay Soomaaliya, kuwaasoo dagaalkii maanta qayb weyn ka ahaa. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxay ku guuleysteen hubkii ugu tirada badnaa in ay ka soo furtaan kooxaha argagixisada ee al-shabaab. wararka sidoo kale waxay sheegayaan in halkaasi lagu dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan nabadiidka al-shabaab. waxaana horjoogayaasha la dilay ka mid ah madaxii jabhadaha kooxda nabadiidka ee al-shabaab ee deegaanadaasi ku sugnaa. degmada Jamaame ayaa lagu qaarijiyay. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa haatan wada dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa ay ka wadaan deegaanadaasi. waxayna ciidanku ay ku guuleysteen in gabi ahaanba goobahaasi ay ka nadiifiyaan kooxda nabadiidka ee al-shabaab. Jamaame waxa ay ka mid tahay goobaha sida weyn ee howlgallada maanta uga sameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxayna ciidanku ku guuleysteen in gabi ahaanba degmadaas iyo hareeraheeda ay ka nadiifiyaan kooxda nabadiidka ah. waxayna warku haatan sheegayaan in ciidamadu ay gaafureegayaan gudaha degmada iyo banaankeedaba, iyadoo 25 kilomitir oo magaalada banaankeeda ah looga saaray kooxda nabadiidka ah al-shabaab. wararka sidoo kale waxay sheegayaan in ciidanku ay soo furteen gaadiid dagaal oo ay lahaayeen nabadiidka al-shabaab. sidoo kale baabuur uu saarnaa qoriga loo yaqaan Zuuga ayay ciidamadu maanta ku gubeen dagaalkii ka dhacay degmada Jamaame. ciidanka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa ay qaarijiyeen 55 dhagar qabo oo ka tirsan kooxda argagixisada ee al-shabaab. dagaalka oo ahaa mid aad u xoogan ayay ciidamadu waxay sidoo kale ku guuleysteen inay soo qabtaan horjoogayaal dhaawac ah oo ka tirsanaa kooxda nabadiidka ee al-shabaab. sidoo kale maleeshiyaad dhaawac ay ciidamadu gacanta ku soo dhigeen. intuu dagaalku socdayna waxa ay soo dhiibtay 10 dhagar qabo oo ka tirsan kooxda khawaarijta al-shabaab u adkeysan waayay gulufka xoogan ee ka dhanka ah kooxdaasi. waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland ay haatan gaafureegayaan guud ahaan goobihii laga saaray kooxda nabadiidka al-shabaab. howlgalladan oo ahaa kuwa aad u xoogan ayaa ilaa haatan oo habeenimada waxay ka soconayaan guud ahaan deegaanada Jubbaland. ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Jubbaland qaasatan guutada Barjeex ayaa haatan ku sugan guud ahaan goobihii lagu dagaalamay. waxayna ciidanku haatan ay gulufyada ugu xooganaa ama dhaqdhaqaaqyada ugu xooganaa ay ka wadaan guud ahaan deegaanada Jubbaland.
sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa amarkii ugu xooganaa bixiyay wuxuuna taliyuhu amray in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 24 saac ee soo socota inay dhaqaaqaan goobaha lagu tuhunsan yahay in ku dhuumaaleysanayaan kooxda nabaddiidka Al-Shabaab. General Ibrahim oo la kulmay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in ciidanka heegan buuxa la geliyo sida ugu dhaqsiyaha badan 24 saac la soo dhaafay ama 24 saac soo socota ciidamadu inay ku dhaqaaqaan goobo badan ay ku dhuumaaleysanayaan kooxda nabaddiidka Al-Shabaab. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Ibrahim ayaa sidoo kale waxa uu xusay in ciidanku ay haatanba guud ahaan amri u qabaan in ay dhaqaaqaan goobo kasta oo lagu tuhunsan yahay in ay gabaad u yihiin kooxda nabaddiidka Al-Shabaab. wararka ay sidoo kale waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee haatanba ay dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa ay ka bilaabeen guud ahaan gobolada dalka. dhaqdhaqaaqyadaasi waxay si xawli uga soconayaan goobaha lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan kooxda nabaddiidka Al-Shabaab. sidoo kale wararka ayaa waxay sheegayaan in taliyuhu uu la kulmay saraakiisha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kale taliyuhu wuxuu magacaabay saraakiil qaybeedyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka si loo dardargeliyo howlgallada ka dhanka ah kooxaha nabaddiidka Al-Shabaab ee haatan ka soconaya guud ahaan gobolada dalka. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhaqaaqay waxayna ka dhaqaaqeen dhowr jaha oo ka tirsan gobolada dalka waxayna wararku intaasi ku darayaan in ciidanku ay sidoo kale guud ahaanba haatan ay gaafureegayaan deegaano iyo tuulooyin ka tirsan gobolada dalka waxaana jira heegan buuxa in la ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kale ciidanka ayaa haatan waxaa gaaray saanadii ugu badnaa oo military ah ay keeneen dhawaan dowladaha Turkiga, Qatar iyo Sacuudiga waxaana sidoo kale dhawaan Muqdisho soo gaari doona 20 diyaaradood oo dowladda Pakistan ay u deeqdo Soomaaliya kuwaasoo ah noocii ugu dambeeyay qaybna ka qaadanaya dagaalka adag ee lagu jiro kooxaha nabaddiidka Al-Shabaab. sidoo kale haatan ay idinla hadlayo waxaa howlgalkii ugu xooganaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe qaasatan tuulooyin hoostaga deegaanka Cali Fool Dheere. sidoo kale howlgallada ay ciidamadu waxa ay ka sameeyeen dhowr tuulo ama dhowr deegaan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. goobaha howlgallada ay ka dhaceen waxaa kamid ah deegaanka Daaru Nimco iyo Al-Kawthar oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna ciidanku xilligan uu habeenimo ah ay galeen goobo badan oo gabaad u ahaa kooxda nabaddiidka Al-Shabaab. wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay haatan deegaanka Al-Kawthar iyo Daaru Nimco ay gudaha u galeen dagaalkii ugu xooganaa ayaa xilligan uu habeenimo ka soconay deegaanadaasi. sidoo kale waxaa socda duqeymo xoogan oo ka dhana kooxaha nabaddiidka Al-Shabaab. diyaaradaha dagaalka ee dhawaan magaalada Muqdisho yimid ayaa duqeymihii ugu cuslaa caawa waxa ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna ciidanku ay ku guuleysteen in gabi ahaanba deegaanadaasi ay ka nadiifiyaan kooxda nabaddiidka Al-Shabaab. sidoo kale wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in haatan howlgalladii ugu cuslaa ay ka soconayaan sidoo kale deegaan lagu magacaabo Ceel Cali Axmed iyo deegaanka lagu magacaabo Ceel Baraf halkaas oo lagu tuhunsan yahay inay gacanta ku hayaan kooxaha nabaddiidka Al-Shabaab. xilligan oo habeenimo ah ay ciidanku u guureeyeen goobo badan oo nabaddiidku ay ku dhuumaaleysanayeen waxaana jira khasaare xoogan oo la gaarsiiyay kooxda qawaarija Al-Shabaab. howlgalladan oo si xoogan uga soconaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayay ciidamadu sidoo kale waxay ku guuleysteen in gabi ahaan deegaanadaasi ay ka nadiifiyaan kooxaha nabaddiidka Al-Shabaab. Shabeellaha Dhexe xawliga howlgalka ayaa ka soconaya waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliya saacadda ka dambaysa ay gudaha u galiyaan goobo ay ku dhuumaaleysanayeen nabaddiidka Al-Shabaab waxayna sidoo kale ciidanku ay ku guuleysteen jihooyin dhowr ah oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe in ay ka nadiifiyaan kooxda naflacaadiga Al-Shabaab. Shabeellaha Dhexe sidoo kale haatan ay idinla hadlayay ciidanku waxay wadaan abaabuladii ugu xooganaa oo ka dhana kooxaha nabaddiidka Al-Shabaab. taliska ciidanka cirka ee deegaanka Wargaadhi waxaa ka soconaya abaabuladii ugu xooganaa waxayna wararku sheegayaan in agabkii ugu badnaa oo military laga dajiyay halkaasi waxaana guud ahaan hadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu qalabeynayaa hubkii ugu dambeeyay oo kula dagaalami lahayn kooxaha nabaddiidka Al-Shabaab. taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalkana wuxuu sii dardargeliyay howlgallada ka dhanka ah kooxaha argagixisada Al-Shabaab waxaana taliyuhu sidoo kale guud ahaanba haatan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ama ciidanku deegaanada ay joogaan uu ku amray in sida ugu dhaqsiyaha badan inay ka dhaqaaqaan ay u dhaqaaqaan goobaha ay ku dhuumaaleysanayaan nabaddiidka Al-Shabaab. guud ahaan gobolada dalka waxaa si xawli uga soconaya howlgallada culus
oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidankana maalmihii ugu dambeeyay deegaano dhowr ah ayay ka nadiifiyeen kooxaha nabadiidka ee al-shabaab daawadayaal wuxuu ku soo kordhaa howlgallada culus ee ka soconaya deegaanada tuulooyin dhaca gobolada dalka janalkeena ayaad ka daawan doontaan fadlan hadduu janalku ku soo gaaro subscribe inoo saar muuqaalkana meel dheer inoo gaarsiisaad ula socoto howlgallada kala duwan ay sameynayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa mahadsantihiin